magaca dheer Basha Adduunyo waxaa halkan aan idinku soo gudbinayaa qormo yar oo ka kooban buuggayga magaciisa la yiraahdo Jawharada Qoyska. buuggaygu waxa uu ka hadlayaa cutubyo kala duwan oo ugu horeeyo guurka, qoyska Soomaalida, qoysaska caalamka. wuxuu ka hadlayaa xuquuqda gabadha, wuxuu ka hadlayaa hooyada, wuxuu ka hadlayaa carruurta iyo dhammaan xubnaha qoyska. qaybtan yar ee kooban ee aan halkan idinku soo gudbinayo waxaa la yidhaahaa gabadha iyo qoyska. rasuulkeennii suubanaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu yidhi, gabadhii dhimata ninkeeda oo raalli ka ah jannada ayay gashaa. waxaa kale oo rasuulku yidhi, haddii gabadhu tukato 5 salaadood, soonto bisheeda soon, ilaaliso xubinteeda taranka, ninkeeda ay adeecdo, waxaa lagu yidhaahdaa jannada ka gal albaabka aad doonto. waxaa wariyey Axmed bin Hanbal. cali ibn abi Talib radiyallahu canhu waxa uu yidhi, qofka 5 arrimood ayaa noloshiisa wax ka tara, waxaanay kala yihiin haweenaydiisa oo maqasha, carruurtiisa oo daacad u ah, saaxiibadiisa oo alla ka cabsi badan, dariskiisa oo muslim dhab ah, iyo risqiisa oo alla waasiciyo. Axmed bin Hanbal radiyallahu canhu wuxuu yidhi isaguna, 6 arrimood haddii ay ku kulmaan qof dumar ah, khayrkeedu wuu badnaaday, waxaanay kala yihiin 5 salaadood oo ay tukato, rabbigeeda oo ay raali geliso, ninkeeda oo ay adeecdo, carabkeeda oo ay xanta ka ilaaliso, iyo in ay ku qanacdo wixii dhib ah ee alla ku keeno. haweenka waxaa la faray waajibaad la mid ah kan ragga, waxay kala siman yihiin cibaadaysiga ragga. dumarnimadu kama reebayso cibaadada Ilaahay iyo gudashada wixii lagu waajibiyey sida salaada, soonka, sakada iyo xashka. waxaana loo abaalmarinayaa doonaa sida ragga loo abaalmariyo qawaaniinta samaawiga ah iyo xeerarka aadamuhu dhigtay. ragga iyo haweenku waxay leeyihiin sinaansho shakhsiyadeed gaar ahaaneed, iyada oo aan ku tiirsanayn aabaheed, walaalkeeda ama ninkeeda. sinaantaas oo keenaysa mid u dhiganta ta ragga. bulshada Soomaalidu way jirtay waqti ay gabadha yasayeen, arrintaasi dunida kale ayay kala mid ahaayeen oo ay weliba iyagu ugu fiicnaayeen, waayo may jirin sida reer galbeedka gabadh la iibiyo ama sida carabtii hore in la xabaalnololiyo. hase yeeshee waxay u muuqateen in aan la jeclayn dhalashadooda, waxaanay ugu heesi jireen waxay gabadha la tayaaba dharaar walba oohinteeda, dhibaat soo doonideeda, ninkii qabay dhibayadeeda. gabadha deegaanka ay doonto ha ku noolaatay qowmiyad kasta ha noqotee, waxay la kulmayeen xaalad isku mid ah. bulshada Soomaalidu waxay ku maamaayeen 3 ragga ammaan ku yihi gabadha waa ku ceeb: geesinimada, deeqsinimada iyo dooda. bal qiyaas haddii gabadha intaas loo qori waayo ama lagu qiimeyn waayo, miyaan laga hoosaysin aadminimadaba. xataa dumarkan dhankii loo rogiyo dhinacna diidaynay, dadignaanta lunbaa lagu arkiyo dhiilka caanaha iyaguba adowgoodoo dhintay dhaxal ka waayeen. gabadhu waa gacal, waa naxariis Ilaahay nagu galaday, waa gacan ku adeegto oo raaxadaada dhammaystirta, waa gacan marka ay laabta kaa saarto ku ilowsiisa wax kasta oo aad la jeclayso, isla markaa aad u hurayso wax kasta oo ay kaa dalabto. gabadha gacanteedu waa midda marka ay galka ku qabato oo sidaa yeel ay ku tidhaahdo aad ku culfinayso ruux kasta oo aad u cadhaysnay. bulshada Soomaalidu marka ay tusmaynayso gabadha waxay ku qiimeeyaan yaa dhalay, yay u dhaxday iyo yay dhashay. mar kale waxay ku maahmaahaan gabadhu mar waa xoog, marna waa xilo, marna waa xoolo, taas oo ay uga jeedaan waxtarka gabadha oo mar kasta jooga, sida marka ay yar tahay ee qoyska u adeegayso oo ay xoog tahay,
marna ay xilo tahay mar kalena xoolo laga bixiyo oo reerkii dhalay la siiyo. Gabadhu waa noolaha ugu quruxda badan aadamaha dunida ku nool. Waxa laga abuuray feedha ragga si ay garabkiisa u noqoto. Lagama abuurin madaxiisa si uu uga sarreeyo, lagamana abuurin cagihiisa si uu uga sarreeyo. Hase yeeshee waxa laga sameeyey garabkiisa hoostiisa si ay u difaacdo. Feedhu waxay ku taallaa wadnihiisa agtiisa si uu u jeclaado. Gabadhu waxay ballan qaad samaysaa iyada oo da'deedu yar tahay. Gabadhu waxay shukulaatada siisaa walaalkeeda yar. Gabadhu jacaylka waxay uga tanaasushaa ka farxinta waalidkeeda iyo qaadashada farduco. Gabadhu nolosheeda waxay u hibaysaa ka farxinta ubadkeeda. Marka ay ahayd gabadh waxay albaabka jannada u furtay aabaheed. Markii ay noqotay marwana waxay dhammaystirtay diinta saygeeda. Noqotay hooyana jannada waxa la dhigay lugaheeda hoosteeda. Gabadhaas markaa waxay ka geeydaa xushmeyn iyo sharafteeda oo aad dhowrto. Ugu dambeyn waxaan halkan uga mahadcelinayaa G Studio iyo farsamadii Maxamed Ganay.